السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا وناكسن دمانتين داوديال ملك صدافع عالم كأد كجوكتان هل كانوا واتفيق عالم جايستي في حمد سدحي مقالة الشجع داوديال وحلا سوقاري هذا أنا سوقت بيتش النور وحي وقت حاضر كان جالس سوقار الديجان كإدال كبوديسة وأنا ستة سيدنا سعيد ونهضوا بيدمه أنا جو أحمد بن أحمد قضى بدو الدركران وحكم ده إنا لله وإنا إليه راجعون وحا أسقر حرمتها ديجان كالوس ميدتك سومالي ده هاي sida axmaqnimada iyo gardarada ah loogu xasuuqay magaalada Awaday qodobkan iyo qodobo kale dhameystiran u diyaar garowga daawadayaal faahfaahintooda وهجاك daawadayaal isoonood wanaagsan marka leh iminkana u diyaar garowga qodobadii oo faahfaahsan إنا لله وإنا إليه راجعون وحا أسقرن حرونتا ديغان كاللوغو سوميي دادكي سوماليدا أها ee sida axmaqnimada iyo gardarada ah lagu xasuuqay magaalada Awaday faalada warkani waxa inoo si amba qaadaya wariyaheena Maxamed Axmed Cumar waxa asqaran oo aan loo kala harin xabaalaha gidibka ee magaalada Jigjiga loogu sameeyay dadkii lagu xasuuqay magaalada Awaday labadii bisha Maskaram 2010 iyadoo oo tirada dhimashadu ay gaadhaysay 40 qof balse tirada dadka aaska loo sameeyay ay yihiin 18 qof oo si wadar ah loo aasay aaskan qaran ayaa waxa ka soo qayb galay hogaaminta sare ee xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya iyo xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo uu ugu horeeyo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar afayeenka golaha baarlamaanka ahna gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya mudane Maxamed Rashiid Isaaq madaxweyne ku-xigeenada deegaanka golaha wasiirada hogaaminta diimaha odayaal dhaqameedka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee magaalada Jigjiga waxaana goobtii aaska ka hadlay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo ugu horeyn shacabweynaha deegaanka uga tacsiiyay dhacdadii xasuuqa ahayd ee dadka rayidka ah ee Soomaalida ah lagula kacay magaalada Awaday iyo badbaadadii ciidamada difaaca qaranku u sameeyeen 300 oo Soomaali ah oo ku jiray gacanta cadawgii xasuuqa geystay dhammaan shacabka dawladda Soomaalida Itoobiya meel kasta ay ku nool yihiin ama ay ku sugan yihiin dal iyo dibadba waxaan inooga tacsiinaynaa anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya dadkii Soomaalida ahaa ee labada bisha Maskaram 2010 taariikhda dalkeena Itoobiya lagu xasuuqay magaalada Awaday iyaga oo waxba aan galabsanin guryahoodiina lagala soo baxay kaliya loo dilay in ay Soomaali yihiin waxa si degdeg ah u tagay goobtii lagu xasuuqay dadkaas ciidamada qaranka iyo federal booliska oo si muwaadinimo ku dheehan tahay u badbaadiyay 300 oo qof oo iyagana la rabay in sidaas si kalmida loo xasuuqo 300 oo kale si nabadgeliya ayaa loo soo badbaadiyay hadda ku sugan yihiin xukuumadda dawladda Itoobiya inkastoo dadka la xasuuqay ay lagu xasuuqay meel ay goobjoog ka hayeen maamulada bariga Harargee madaxweynaha ayaa si adag ugu nuuxnuuxsaday nabadgelyadu tahay furaha horumarka oo aan sinaba looga maarmi karin ayna tahay shay muhiim u ah nolosha bini'aadamka isla markaana haddii ay geed dhaladii fuushana laga daba fuulayo wuxuuna madaxweynuhu ka digay inaynaan ku daynin tallaabadaas axmaqnimada ah ee ay sida gardarrada ugu xasuuqeen shacabkii Soomaalida ahaa ee sida nabadgelyada ah ugu noolaa deegaanka Oromada isagoo tilmaamay inaysan geesinimo ahayn isla markaasna aysan weynaantu ahayn xasuuq iyo gardarro lagula kaco dad rayid ah inaan ka shaqeyno dad kale oo Soomaali iyo Oromo inayna dhimanin inaan ka shaqeynaa loo baahan yahay looma baahna inaan ficil sameeyno looma baahna ficil iyo faa'iidana meel ma wada fadhiistaan waxa loo baahan yahay inaynu ilaalino xasiloonida nabadgelyada gaar ahaan dadka deegaanka ku nool ee Oromada ee waxa weeyaan ay jaar ku nahay ee waxa weeyaan deegaankeena ama ganacsi ama shaqo ama si Itoobiyaanimo u jooga ninkii wax yeelay nin Soomaali wuxuu qabanaya meehe waa cadow Soomaaliyeed taanayna isla qaadana loo baahan yahay geesinimo maaha raynimo maaha sharafna maaha dad shacaba oo waxa weeye aan qori haysan oo adiga in sida aad u jeceshahay inaan wax lagu yeelin iyaguna u jecel inaan wax la yeelin ama dad shacaba oo masaakiina in looga aargoosto dad dambiilayaal waxay sameeyeen Soomaalidu dhaqan oo male inaan sameynana maaha
ninka sameynaya waxa inagu abaabuliyeen nin Soomaali wax u qabanaya maaha taana hal ogaado waxa loo baahan yahay oo maanta la inaga baahan yahay inaan samirno oo samir qaadana loo baahan yahay samir ma qaadana in la samro oo waxa weeyaan dadka ay nagu dhaxnool ee Oromada inaan waxba la yeelin ayay geesinimadu iyo sharaftu ku jirtaa waana taariikh maanta oo kale waxa loo baahan yahay xilligan oo kale cidda inaan iskantarona loo baahan yahay maarayntuna ma aha xilliga wanaagsan in wax la maareeyo xilligan oo kale loo baahan yahay in la taliyo oo taladu xilligan u baahantahay uma baahanin maxaa ku raayo wax si isir la isku laayo oo si socda oo Oromiyo Soomaaliya la isku dilo uma baahanin ilaahayna ha naga hayo aamin mana rabno guul kama gaadhayno in maxaa ku raayo Soomaaliya Oromo la isku laayo taasina hoosta ka xariiqna loo baahan shacabka deegaanka Soomaalidana taa inay qaataan oo aad ogaataan maanta dadka meesha ku dhintay way shiitameen waa helichano gacan ka gardaran oo xaq darro oo daalima ayaa dishay laakiin inaan maxaa ku raahay ka daba ficiltano looma baahno oo dad u fiirso masaakiina oo waxa weeye gurigaaga ku dhex jira hadaa disho maxay soo celini waxay jirto geesinimaduna ma aha sharafna ma aha in dad mataqaanaa shacaba oo walaala oo inagu dhex jira in la laayo lama baahno inaan walibana iyaga ceewoobay oo dadkii ku dhex noolaa qashay dadkii ku dhex noolaa iyaga qashay oo diirka ka qaaday oo googooyay inaguna inaynu taas sameeyno looma baahnaa taas weyn haddii kale waxay noqonaynaa isku mid uma noqonaynaa ka dhigan tahay Soomaalidu sharaf ha qaadato sharaf ma qaadana sharaf iyo waxaan ku raaday wanaag iyo cisi ha qaadano ilaahayna waxa weeyaan dadka meeshiisii wax khayr qaba Allah inoo soo galiyo waxa loo baahan yahay ogaataan kaliya weynidu waa ku dhaqanka fikrada iyo ficilada ay ku dheehan tahay aragtida shacabnimadu oo dadka wada degan iyo dadka jaarka ay ku gaari karaan horumar iyo nabadgeliyo taasa weynida la sheegay wax kala ma waa fikir wanaagsan oo dadka midaynaya inaad la timaado ayaa waxa weeyaan weyni taa la ogaado weynidu ma aha wax kale weynidu ma aha waxa weeyaan inaad layso shacab aan waxba haysanin oo guryahooda lagala baxay oo waxa weeye maxaa ku raha shaqaalaha oo masaakiina in la laayo ma aha weynidu waxa weeyaan waa in maxaa ku rahaye fikrada iyo ficilada dadka isu keenaya walaalaynaya in lagu dhaqmo taasa weyniya taasa loo baahan inaan ku dhaqano weynidu wax kala ma aha aqliguna wax kala ma aha Soomaalida deegaanka Soomaalida Itoobiya taas ay ogaada laga baahan dhimashadu maxaa ku rahay inagu ma cusba shalay ma taqaanaaye dhibaato badan waan soo marnay maanta laakiin diyaar uma nihin ina maxaa ku rahay dad qoobiyeed in la isku laayo wax faa'iido inagu jirta ma jirto mana rabno cidii arinta u xaabo urursanaysa inay eegto adduunyada maxaa ku rahay rogmanaysa waxaan oo kale oo la qabanin bay ku rogmataa waxa weeyaan nabad baan haysanaa horumar baan haysanaa nabadgeliyaan haysanaa inaan taasi adkeena loo baahan waxa loo baahan yahay inaad ogaataan nabadgeliyadu waa quraha horumarka nabadgeliyadu waa nolol nabadgeliyadu waa caafimaad waa wada noolaashiyo walaaltinimo nabadgeliyadu geed kasto ay nabadgeliyadu fuushana waan ka daba fuulaynaa nabadgeliyaan u baahanahay nabadgeliyada Allah inaga hayo nabadgeliyadu waa hoog iyo halaag loo baahan yahay dhamaanteen inaan ka fogaano wax kasta oo keenaya ama isku diraya ama si bumbuuninaya dadka walaalaha ama jaarka ee waxa weeye maxaan ku raaa Oromada iyo Soomaalida inaan wax kasta oo keenaya isku dhufasho inaan ka fogaano loo baahan yahay nin kastana waanada intuu qaato cid kasta ha ku waaniyo dantu saasay nagu jirtaa madaxweynaha ayaa dhanka kale u sheegay shacabka deegaanka inaysan falalkan ku lug lahayn shacabka Oromada oo ay jiraan dad Oromo ah oo guryahooda ku badbaadiyay dad badan oo Soomaali ah isla markaana si nabadgelyadooda loo sugo ku wareejiyay ciidamada qaranka inaad ogaataan baa loo baahan yahay dad Oromo ah oo shacaba oo dadkan markii la xasuuqayay guryahooda ku qariyay oo ciidanka qaranka la soo hadlay dawladda deegaanka la soo hadlay oo yiri intaasoo qof baan ku haynaa kaalay naga qaaday inay jiraan in la ogaado loo baahan yahay
taas waxay ku tusaysaa yacni waxani wax shacab sameeyey inuuna ahayn. wuxuuna madaxweynuhu intaasi ku daray in hay-adaha dawladda ee Oromiya sida booliska iyo maleeshiyadu ay qayb ka yihiin dagaalka. booliska iyo maamulada Oromiya goobta ku jiray iyagoo goobta jooga waxaan dhacay meesha shacabka Oromadu ay waxa weeyaan inay badbaadiyeen isku dayeen waa wax xaqiiqa arintaasna inaad soo ogaataano ayna noqonin in maxaan ku raash laga sinaa ayna noqonin dad ujeedaleena yihiin inaad ogaataan baa loo baahan. sidoo kale madaxweynaha ayaa sheegay in dastuurkeena lagu xaqiijiyay xuquuqda shakhsiga iyo taqawmiyadaha sidaa daraadeedna aan cidna lagu qasbi karin cid aysan ahayn. dastuurka dalka Itoobiya waxa lagu cadeeyay xuquuqda shakhsiga iyo kooxda iyo qoomiyadaha dadka xadka degan in Oromonimo lagu qasbo ma in Soomaalinimo lagu qasbo ma qofku wuxuu yahay isaga hadduu yiraahdo Oromonay waa Oromo hadduu yiraahdo Soomaalimanay waa Soomaaliya in la qasbo ma hadii nin aan Soomaalinimada ku faarin isagoo gaajoonaya oo sakaraad nin aan Soomaalinimada ku faarin ma lacag ku qasban karnaa siyaasad ma taqaanaa dul balaarina oo waxa weeyaan dadka waxa weeyaan lacag lagu kasbanayo ma geli karnaa anagu waxa weeyaan Soomaalinimadu dhergigii iyo xayraasay iyadoo sakaraada ay Soomaalinimada ku faanaysay lacagna kuma kasban karno kuma raadinayno cidii Soomaaliya ee Soomaaliyeed ku faani umba Soomaaliya. dhanka kale madaxweynaha ayaa ku tilmaamay in inta dadka la xasuuqo haddana sawirrada meydkooda la soo dhigo baraha bulshada ay tahay mid aan bannaanayn oo bulshada dariska ah kala fogeynaysa. waxa loo baahan yahay in ay Soomaalidu ogaato ujeedada loo xasuuqay dadkan haddana social media-ga loo soo gelinayo in ay tahay oo kaliya in la sameeyo sidooda axmuqnimada oo kale marka dadkani way dhinteen maanta ma soo noqonayaan Allah u naxariisto janno firdawsana Allah ka waraabiyo. dhinaca kale madaxweynaha ayaa sheegay inaan horumar kaga guuleysanayno ficilada axmaqnimada leh ee lagu doonayo in lagu carqaladeeyo nabadda iyo nagaadiga deegaanka. waxaan isku ognahay nabadgeliyo iyo horumar inaan ka shaqeyno hadda inagu ku mashquulmayno nabadgeliyo darre hal baan idin sheegaya waxaan ku mashquulaynaa inaan xadhiga ka soo jarno 150 kilomitir biyaha laga qaaday meesha la yidhaaho birqob yaa gunagada ka cabaysa oo ay dig ka cabaysa oo weyshu ay ka cabaysa oo nusariiq ilaa marsani ilaa danood iyo halka la gari banka xaguuga biyo gelintiisa ayaan xadhig ka soo jaraynaa banka xaguuga inaan biyo gelino ceelasha laga qoday gaashaamo oo shalay abaar u dhimanaysay maanta biyo laga helay kuwaasaan xadhiga ka soo jaraynaa danood iyo ceelba laga qoday waxa weeyaan daradon kuwaasaan xadhig ka soo jaraynaa mashaariicda laga bilaabo waxa weeyaan dhadhamane ilaa iyo fiiq ee biyogelinta la dhagax dhigi oo aan ka shaqeynaynaa mashaariicda waaweyn iyo horumarkaan ka shaqeynaynaa waxaan ku guuleysanaynaa horumarka oo kaliya waxaad ogaataan hal qodob baad doonaysaa inaad ogaataan maanta shalay toole iyo maanta isbarbar dhiga shalay qubi halkay ku taalay qubi meel loo mara ma jirin waxaan joognay iyada oo waxa weeyaan inta isku dhac qoobeed dhacay magaalada qubi meel loo mara la leeyahay ma yimuluqo meel loo mara la leeyahay lakidiya salaxaad meel loo mara leeyahay qarsaadulla meel loo mara la leeyahay maanta salaakiin meel kasta wada laga sameeyay buundaana saaran kii xanuunsaday kii kale waa la tagaya inagu horumar baan ku dagaalamayna waxa kaliya inagu arsan gobolka dhaawo oo hadda buundadiisii gacanta lagu wada waxaan ku ficiltamaynaa inaan dhaawo buundadiisa saarno taasaa ficile inaan wax kale ficil maaha buundada in deegaanka Soomaalida aan isku xidhno oo meel kale loo marin ayaan maxaan ku rahay ficile wax kale ma dhaawo awaasa ka soo wareegtaa hadda meel ogtay awaasa 3 kilomitir bay soo wareegtaa waa buunda kaliya buundadii baa maanta la sameynaya marka gaariga mooyaale ka soo baxa tijiga waa inuu soo istaago isagoo deegaanka la soo marin maanta salaxaad iyo lakida iyadoo meel kale la soo marin baa jijiga la maraya shalay laakiin cadisaba la marayay wadadan diridaba iyo jijiga isku xigta oo tooska yaa haysata
حاجة أم حاكم مرة مالك وجود اللي محاكم مرة هذا كبعد وحي خضار حاجة أم يناص مري أنت نبت قليلة للصغير تدخل هاي استعمالان دربة تجيبه توصل madaxweynaha ayaa shacabweynaha deegaanka ku amaanay sida ay u ilaaliyeen xuquuqda shakhsiyadeed ta kooxeed iyo ta qowmiyadeed ee uu dastuurka dalkeenu dhigayo iyo sida nabadgelyada buuxda leh ee u badbaadiyeen dadkii inagu dhex noolaa ee ka soo jeeday deegaanka Oromiya taasoo sharaf iyo sumcad taariikhi ah u soo hoysay bulshada deegaanka shacabka deegaanka Soomaalida Itoobiya meel kasta joogo sida wanaagsanayd ee aad yeesheen ee aad u badbaadiseen والله وح تاريخ الشيء دولة فدرالك هي الشعب كإثيوبيا ودنا ويدين مهالعلي سيدا كيسين لماذا سميسن وامد محاقرة الشعب كإثيوبيا ودنا يديكم مهالعلي وامد شعب كأرمضوا يديكم مهالعليين إن عددكي هكا مركي اللي يقول لي يديكم هالبدبايسين ويغور من ماذا عد قد بسين وامد رغني ملويا si wanaagsan yaa samaysan waad ku mahadsantiin aad baad u mahadsantiin ugu dambeyn madaxweynaha ayaa ka codsaday dawladda federaalka iyo hay'adaha amniga in sharciga lala tiigsado dadkii geystay dhibaatadan iyo cidii ka dambeysayba waxaan dawladda federaalka ka codsanaynaa in la hor keeno sharciga dadkii waxaan ka dambeeyay iyo kuwii falka sameeyayba waxaan wax Itoobiya ka dhacay maaha waa markii ugu horeysay taariikhda dalka Itoobiya ee dad guryahooda ku jira inta lagala soo baxo kurka laga jaro waa markii ugu horeysay dawladda federaalka Itoobiya waxaan ka codsanaynaa anagoo ku kalsooni qabna in dadkan laayay iyo kuwii ka dambeeyay haddaba la bilaabay qabashadoodii in sharciga la hor keeno inagu waxaan ku aarsanaynaa sharciga waxaana intaa dheer in hogaamiyaasha diimaha kala duwan ee dalkeenna ay arrintan ku tilmaameen xasuuq heer caalami ah iyadoo ugu horreyn uu ka hadlay gudoomiyaha golaha sare ee arrimaha islaamka ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Sheekh Cabdiraxmaan Xasan Xuseen inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dhamaan dadweynaha ku nool dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya anigoo ku hadlaya codka golaha arrimaha islaamka deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo dhamaan culimada diinka magaceeda ayaan waxaan u soo gudbinayaa tacsi eheladii ay ka geeriyoodeen walaalaheenii aynu xabaalaynay ee gacanta ka xaq daran oo ay dishay waxaan leeyahay dhamaanteen ilaahay sabir iyo iimaan Allah inaga siiyo iyagana ilaahay jannada ha ka waraabiyo qof miskiin ah oo asagoo aan wax galabsanin oo waxba ogeyn yaan wax la yeelin ilaahay ba subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wala taziru waziratan wizra ukhra nafdan bawday naf kala dambigeeda looma qabto waxaan leeyahay walaalayaal inagoo diinteena macaan sida ayna fartay raacayna nasab wanaagnimadeennii iyo dhaqankeennii wanaagsanaa iyo xishoodkeennii iyo magaydada ka xishoodkeedii aynu lahaan jirnay inagoo raacayna waxaan u taakiidinayaa sida madaxweynuhu uu yiri dadka masaakiinta ah ee agteena ku nool yaan wax la yeelin waxaan ammaan u soo jeedinayaa sidii sharafta lahayd ee maartay iyagu meesha ay baabuurka meydka ay noo soo rareen ee ciidamada federaalku ay soo rareen inagu iyaga oo nabad qaba oo sahaydoodii wata aynu u daba marinay taasa karaamiya sharaf inoo filan walaalayaal sidoo kale waxa ayana dhankooda ka hadlay hogaamiyaasha diimaha ortodokska iyo kaatoliga ee kala ah Malaaka Mahrat iyo Takla Birhan ክቡራን እዚህ በግፍ የተጨፈጨፉና የተገደሉ ወገኖቻችን ሥርዓተ ቀብር ለማስፈጸም የተገኛችሁ ወገኖቻችን በዛሬው ዕለት አሰቃቂና ዘግናኝ በሆነ ግፍ የተጨፈጨፉ የወገኖቻችን እልቂት ሐዘኑ ለሶማሌ ብሔሮች ብቻ ሳይሆን የመላ ኢትዮጵያውያን ሐዘን መሆኑ ይታወቃል madaxweynaha sharafta leh ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdi Maxamuud Cumar madaxda kale ee dawladda iyo culimada diinta iyo shacabweynaha ka soo qayb galay aaskan qaran ee dadkii la xasuuqay qaraabada iyo eheladii dadka xasuuqan foosha xun loo geystay aaskan qaran ee aan maanta taaganahay ma ahan geeri qoomiyadda Soomaalida kaliya loo geystay ee waa aas iyo geeri qaran oo ummadaha Itoobiya oo dhan lagula kacay
haddaba annagoo Itoobiyaan ah taariikhdeenna aan ku faanno mid ka mid ahi waa dhammaan qowmiyadaha Itoobiya oo meel walba oo ay ku nool yihiin is-ixtiraama, is-jecel oo is-caawiya islamarkaana isku dulqaata oo xitaa isguursada ayaa taariikhda waddankeenna lagu yaqaanay. haddaba si kastaba ha ahaatee maadaama aan bani aadam nahay khaladaadka iyo isku dhaceenna wada hadal iyo wada xaajood ayaa lagu xallin jiray. hase yeeshee dhacdadani waa mid ay ku dheehan tahay macangegnimo, doqonnimo, cidhiidhi iyo maskax madow oo aan haba yaraatee fakarin, waana dhacdo aan taariikhda iyo caadooyinka Itoobiya soo marin oo ka dhalatay maskax madow oo daloosho islamarkaana dadkeenna lagula kacay fal naxariis darre iyo wuxuushnimo ah. haddaba falalkan noocan ah ee aan dibadaha dalkeenna ka maqli jiray ee sida fawaaxishka ah dadkeenna lagula kacay dhaleecayn keliya ma ahane si adag ayaannu uga soo horjeednaa. dhimashadu qof walba oo aadama ah waa ku xaq, laakiin in dadka sida qudaarta oo kale loo jarjaro waa taariikh madow oo mar walba maskaxdeenna aan ka tirtirmi doonin, dhaawacna u geysatay maskaxda aadamaha oo dhan. dhanka kale dadkii falalkan foosha xun geystay waa kuwo ujeeddo qarsoon oo waddankeenna lagu duminayo xambaarsan oo aan marnaba magaca Itoobiya sheegan karin. sidaas darteed waxaan xukuumadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya si xooggan uga codsanaynaa inay damaanad qaado nabadgelyada shacabka reer Itoobiya si ay bilaa shaki iyo cabsi ugu noolaadaan islamarkaana ay sharciga hor keenaan dadkii falkan foosha xun geystay. sidoo kale annagoo ah culimmada diimaha kala duwan ayaan qoysaskii, eheladii iyo qaraabadii ay ka baxeen dadkii xasuuqan foosha xun loo geystay waxaan u diraynaa tacsi tiiraanyo leh. dhanka kale waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa xukuumadda deegaankeenna ee nabadgelyada iyo xasiloonnida shacabka deegaanka ku soo dabaashay, waxaana xukuumadda sharafta leh ee deegaanka Soomaalida Itoobiya ka codsanaynaa inay sidaa quruxda badan ku sii wadaan nabadgelyada qowmiyadaha Itoobiya ee deegaankan ku dhaqan. ይህንን አስደንጋጭ ሁኔታ ከሰማንበት ጊዜ ጀምሮ በቤተ እምነታችን ልዩ ጸሎት እያደረግን ቆይተናል። አሁንም ደግሞ ቀደም ብለው የክልላችን አስተዳዳሪ አቶ አብዲ ያስተላለፉልን የሐዘን መግለጫ እንደተመለስን ለምእመናኖቻችን አሳልፈን በጸሎት እንቀጥላለን። በጣም ልባችን በሐዘን ተሰብሯል። intaan dhacdada naxdinta leh maqalay kaniisadayadu duco ayaan ka wadnay. haddana sida madaxweynaheenna sharafta leh mudane Cabdi Maxamuud Cumar uu soo sheegay waan u ducaynaynaa dadkii xasuuqa foosha xun loo geystay. ilaahay marka uu na abuuray walaalo iyo ehel ayuu inaga dhigay. xaqiiqdii waxay mas'uuliyiintii iga horreysay ku hadlin ma sheegayo. haddaba sidii uu madaxweynuhu horey u soo sheegay waxaa loo baahan yahay inaan shacab nabadgeliyo, horumar iyo dimuqraadiyad noqonno. waxaana farxad i ah inay hogaaminteennu maanta qoysaskii la xasuuqay geerida la qaybsadaan oo ay dhex joogaan, waxayna tani muujinaysaa inuu madaxweynuhu shacabkiisa mar walba garab joogo. ciilkana waa inaan jacayl ugu rogno. Nelson Mandela 29 sano intuu xidhnaa ayuu haddana dadkiisa xasuuqay yidhi ha taabanina. sidaas ayuuna dunida magac ugu yeeshay. madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumarna waa sidaa oo kale. aad ayaan ugu mahadcelinayaa, waana inaan jacayl ugu bedelno innagu. gacmaheennu mashaariicda horumarineed iyo nabadgelyada ha ka shaqeeyaan. ugu dambayn waxaan tacsi tiiraanyo leh u dirayaa qoysaskii, eheladii iyo qaraabadii ay ka baxeen dadkii Oromiya lagu xasuuqay iyo weliba xukuumadda deegaanka. haddaba shacabka deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa aaska dushiisa ku go'aansaday in si hagar la'aan ah dal iyo dibadba loo caawiyo eheladii iyo qaraabadii dadkii la xasuuqay. isku soo wada duubo ciidanka booliska gaarka ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waa ciidan u taagan nabadgelyada, horumarka iyo difaaca dastuurka dalka, isla markaana qayb libaax ka qaatay joojinta carqaladihii hore. waxaana xaqiiqo ah in arrintani ay tahay mid loola jeedo duminta nidaamka federaalismka iyo dastuurka dalka. warka dalka wasaaradda biyaha, waraabka iyo korontada ee dalka ayaa sheegtay inay wado dadaal lagu sii xoojinayo howlaha biyaha. Ibraahim Cabdi Muuse ayaa inoo sii ambaqaadaya faalada warkan. biyuhu waxay ka mid yihiin waxyaabaha halbowlaha oo horumarka dalka, waxayna kaalin muhiim ka qaataan taabagelinta geedi socodka hawlaha horumarka. sidoo kalena waxaa maragma doona inay biyuhu yihiin waxyaabaha ugu horeeya nolosha aadamaha ee ayna la'aantoodii nolol suura galaynin. waxaana la cadeeyay in 10kii sano aynu soo dhaafnay la fuliyay mashaariic baaxad leh oo kaalin laxaad ka qaatay hawlaha horumarka. wasaaradda biyaha, waraabka iyo korontada dalkuna waxay had iyo habeenba ku hawlan tahay taabagelinta qorshayaasha ku wajahan dhinaca biyaha, waxaana socda dadaalo kala duwan oo lagu sii xoojinayo geedi socodka dhinaca
dhinaca biyaha maadaama ay qorshaysan tahay in 7 sano ee soo socota dhammaanba bulshada laga qabtiro biyaha nadiifta waxaana arrintaasi inoo faahfaahinaya Dr. Salashi Baqalo ah wasiirka wasaaradda biyaha waraabka iyo korontada ee dalka በተቻለ መጠን በአጭር ጊዜ ለማሳካት ማለትም በ7 ዓመት ውስጥ ሁሉም ኢትዮጵያዊ የውሃ ተጠቃሚ እንዲሆን የማድረግ ዘላቂነት ባለው መልኩ ማለት ነው waxaa noo qorshaysan inaannu sida ugu macquulsan ee ugu dhaqsiyaha badan hawshan u guda gallo si aannu 7 sano ee soo socota dhammaanba bulshada dalkeenna Itoobiya u gaarsiino biyo nadiif ah oo waara isla markaana uga baxno xaaladii hore ee ahayd in biyaha roobka uu la sugo ama ceel kaliya uu la isku haleeyo biyihiisa sidoo kale waxa wasiirku intaasi ku daray inay ka wasaarad ahaan u qorshaysan tahay inay xoogga saaraan goobaha ay abaartu ku soo noqnoqotay iyo waliba meelaha roobku ku yar yahay si bulshada looga samata bixiyo dhibaato kasta oo ka iman karta roob la'aanta guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo abeeraynaa war wixii waqti xadarka naga soo gaara deegaanka iyo dalka gudihiisa waxaana si toos ah la socodsiinayay anigoo ah Axmed Ibrahim Axmed aniga asxaabta kala qayb qaadatay timinta warka dhamaanteen isku duuban inta aan kulmi doono timinteena dambe ee wareed waxaan idinku dhaafeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh